jira soo tiraqoob markaasaa dagaal shabaabka iyo niman kale aan ishayno oo aan lala dagaalamayn baa dagaal la gelin jiray si aan tirakoobkaas weyn anigu waxaan leeyahay dawladdu waxay waday inay ciidamada qaranka tirakoobto ayay waday waxaa la og yahay in dad ay jiraan tiraday doono ha noqdeen ha yaraadeen ha badnaadeen waa dawladda iyo wasaaradda maaliyadda gaashaandhigga ka jawaabi doona laakiin dad laba mushahaar qaata inay jiraan baa golaha wasiiradu aad shaki weyn uga qabaa ama la huba ha yaraadeen haddii doona waxaa la hubaa dad ciidaa ka badan oo huteelada ka shaqeeya oo hay-adaha security-ga ee dharka labisa ka shaqeeya inay ciidamada qaranka tirsan oo laba mushahaar qaata anigu intaanan wasiirka u imaan waxaan lahaa kuwaasaa fowdada wada ogaada gacmaha meeshaa ku jira gacmo dawlad dumisaa ku jira gacmo lacag xaaraana qaadanayo inay sii qaataan doonayaa ku jira saraakiil baa ku jirta wasiirku wuxuu iiga jawaabay qof ciidan oo maray nidaamka loo sameeyey ciidamada oo mushahaar la ma jiro anay biliifta taasaan rumaysan haddaan anigu ka soo tirsanaa xukuumaddii cabdillaahi yuusuf cali geedi oo ay noo diideen inaan tirakoobno ciidamada dad oo dana gaara ku qaba haddaan ka soo tirsanaa dawladdii sheekh shariif iyo cumar cabdirashiid oo aan xasuusto aniga mariiniya halkaana laygu qoray inaan khatar ku galnay tirakoobka ciidanka oo dagaalna la ku riday haddaan ka soo tirsanaa dawladdii xasan sheekh sorry iyo cumar cabdirashiid oo noo suuroobi weyda ciidamadoonu ognahay in dad khaladi ku jiraan dad huteella ka shaqeeya ku jiraan in la tirakoobona loo diiday maanta dawladda nabad iyo nolol ma dib dambe uma waabanayso meel laga soo baxay sistamka dawladdaee socda looma joojinayo baadhis xooglena waa lagu hayaa gacmaha dawlad dumiska ee ka dambeeya ciidamada inay brobagaamaan idaacadaha iyo meelaha qaarkood oo ka shaqeeya wiigan inay dawladda brobagaamaan madaxda qaranka khudbadahooda brobagaamaan waxa weeye sida wasiirku ii sheegay aniguna aaminsanahay qof nidaamka maaliyadda ee dalkan kaga baxayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo dayn cafiska maanta joojin karaa ma jiro way laga waantooy waxaanan ogahay in baadhis adag ku socoto dadka riixaya ciidamada soo baxay la waraysan doono ciidamada cabanaya la waraysan doono idaacadaha iyo dadka socialka mediaha buunbuuniya dadka lacagta siiyey la waraysan doono lacag bay qaateen sidaasay ku buunbuuninaya ay briefta markaa waa idinku ammaanaya waxaan ku noqonaya qodobkii ahaa qofka dawladdan u shaqeeya xuquuqdiisa inaad siisaan oo hubisaan ciidamada hadday jiraan kuwa weli sistamku aanu gaadhsiisaan laakiin aydan ka noqonin bareesharka la samaynayaa unu agtiina ka shaqeey ayaan idinku ammaanaya intaa markaa halkaa kaga baxo inigoo idinkoo aad iyo aada u mahadsan